kulan ballaaran oo lagu afurinayo boqolaal dadyo kala duwan ayaa lagu qabtay Columbus. Kulankan ayaa daarnaa xarun weyn oo dhismaheeda lagu soo afmeeray magaalada Columbus, gaar ahaan qaybta iskuulka Fakis Learning Academy, waxaana loogu magac daray Allaha u naxariistay Imaam Maxamed Xasan Aadan, taasoo loo bixiyay Imaam Maxamed Aadan Center. waa xarun lagu diyaariyay qalabka jimicsiga oo bulshada Soomaaliyeed ay kaga faa'iideysan doonaan si bilaash ah, isla markaana waa goob xilliyada iidaha lagu tukan doono, taasoo dadku ay kaga raysan doonaan ku tukashada meelaha bannaanka ah xilliyada qaboobaha ama kulaylaha. kulanka afurka waxaa sidoo kale loogu mahad celiyay dhammaan dadkii ka soo qayb qaatay dadaaladii lagu doonayay in gacanta loogu soo dhigo dhagarqabayaashii dilay Imaam Maxamed Xasan oo xabsi dheer loo jaray ugu dambeyn. Maamulka Fakis Learning Academy oo ah dugsi hoose dhexe ayaa soo abaabulay barnaamijka afurka oo ay goobjoog ka ahaayeen haldoorka jaaliyada, waxgarad ka socda muslimiin kala duwan, dad aan muslimiin ahayn iyo qaybaha bulshada. Aasaasayaasha Fakis Learning Academy waxaa ka mid ahaa Imaam Maxamed Xasan Aadan, Allaha u naxariisto, waana sababta loogu magac daray qayb ka mid ah dhismaha cusub ee iskuulkaasi laga diyaariyay. waa kuwan qaar ka mid ah dadkii soo abaabulay iyo kuwii ka soo qayb galay barnaamijka oo aanu mikrofoonka la dhex qabanay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. magacaygu waa Shukri Maxamed Xasan. maanta waxaa joognaa Focus Academy, waa iskuul Soomaali ay leedahay uu ahaa aabbo qofkii ka mid ahaa dadkii aasaasay iskuulkan. aabbe markii aan waayay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqnaa gobolka Ohio iyo guud ahaan caalamka waxay ii muujiyeen garab istaag aad iyo aad ay u mahadsantihiin. abaalkiina lama gudi karo because rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri man lam yashkurin naasa laa yashkurillah. ma qofaanan dadkii u mahad celin ilaah ma mahad celin. marka aad iyo aad ay u mahadsantihiin ka soo qaybgalkaana la soo qayb gasheen. maanta afur ee tahay maanta dhan la wada soonaa. aad ay u mahadsantihiin Soomaali garabkayga ayaa tihiin. magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdirasaaq Faarax, waxaan ahay Superintendent Focus Learning Academies. qolada maanta hoos garaysay oo soo abaabushay casho sharaftan aan bulshada Soomaaliyeed magaalada degan aan u suubinay. waxaan jeclaan lahaa bulshada maanta halkan isugu timid inaan uga mahad celiyo imaashaha halkan noogu timid. ujeedada aan ka lahayn cashadan aan maanta bulshada u qabanay waxay ahayd in aan afurta bulshada aan la qaybsano, aan kala qayb galno, oo aan bulsho badan meesha isugu keenno. facility-gan iyo gym-kan aan hadda dhismihiisa dhammaynayna inaan furitaankiisii ugu horreeyay officialka ahaa ka dhigno. at the same time-na aan gym-kan ugu magac darno imaamkeennina la ka dilay Imaam Maxamed Xasan Aadan, oo iskuulkeenna shaqo badan ka soo qabtay ilaa iyo maalintii la dhisay dhowr iyo 20 sano ka hor ilaa iyo hadda involved ku ahaa, carruurtooda mentor gareyn jiray, wax bari jiray, la shaqayn jiray. wuxuu ahaa qofkii ugu horeeya ee subaxii carruurtu arkaan, galabtii markii guryahooda aadayaanna si maca salaameeyuu ahaan jiray. carruurta iskuulkeena dhigatay iyo bulshada iskuulka joogta oo dhanna aad ayay u misgaraynayaan. marka sharaf bay noo tahay in familka Sheekh Maxamedna ay noo ogolaadeen in facility-gan quruxda badan leh aan ugu magac darno Sheekh Maxamed Xasan Center. ujeedada aan ka leenahayna waxay tahay inay noqoto meel bulshadu ku soo higato oo ay danaheeda ku qabsato, isugu timaado, khayr badanna ay uga shaqayso. carruurteenna iskuulka dhigata iyo kuwa aan dhiganba ay yimaadaan halkan oo ay ku nafisaan, kuna exercise garayaan way qorshaheeda. facility-gan waxaa kaloo jeclaan lahayn arrin uu sheekhu iskuulkeena ka dhex bilaabay inaan ku sii wadno oo ah meel salaada jimcahana lagu dukado. ciidda bulshada Soomaaliyeed ee halkan degan iyo muslimiinta guud ahaanba ay awal isugu iman jireen oo bannaanka iskuulkeena ay ku dukan jireen, inay hadda yeeshaan meel ay ku soo xaroodaan oo ay ku dukadaan iyagoo aan elementska ka walwalaynin oo aan ka walwalaynin roob iyo baraf iyo qabow iyo qorrax inay ku dhacdo. marka aad bay sharaf noogu tahay bulshada inay halkan isugu timid. waxaan kaloon mahad ugu celin lahaa maamulka iskuulka iyo shaqaalaha iskuulka oo hawshan volunteer xoog la ka suubiyay iyo boardka iskuulka oo Mr. Sofa iyo Mr. Aadan ay ku jiraan. gaar ahaan Mr. Aadan oo dadkii iskuulkeena dhisay kii ugu horreeyay ahaa ilaa haddana dhex taagan, hantidiisa iyo xoolihiisa, dhiiggiisa iyo dhacaankiisaba galshay. isagana abaal aad u weyn buu nagu leeyahay. arrintaanu ma aanay dhici lahayn, mana suurtagelin lahayn haddii aysan ahayn number of people community-gana ka timid oo isu timid si ay u hirgeliyaan facility-gan aadka u quruxda badan leh. marka I am grateful to everybody from our community for coming out and making sure this dream is achieved. It's the first step and we hope to do more of these, and thank you very much. waxaan joognaa Focus Learning Academy oo maalin iftaar ah walaalaha Soomaaliyeed halkan ay kaga soo qayb galeen. waa xarun cusub oo gymnasium ah oo aad u ballaaran
oo walaalaha lagu casuumay inay ka soo qayb galaan dad badan baa yimid waxaanan furitaanka ugu horreeyey oo space intaa la eg oo indoors ah oo uu iskuulku yeesho markii u horreysay la sameeyo waxaa markii maamuuskaana loogu talagalay in xarigga looga jaro xaruntan walaalahana ay u noqoto mid free ah oo ay ka qayb qaataan waxaan rabnaa inaan cilaamino anagoo ku hadlaya magaca golaha boardka in meeshani spacekani ay noqon doonto mid free ah oo lacag la'aan ah mahadee ka gaadho maamulka iyo boardka oo muddo dadaal ku waday taladan waxaa inagu biiriyey allah u naxariistay walaalkan imaam maxamed xasan aadam oo naga baxay 2 sannadood ka hor isaga iyaana loogu magac daray xaruntan oo si loogu maamuuso taariikhdiisii iyo qaybtii uu ka qaatay aasaaskii dugsigan waxaan rabnaa ciidan hadda soo horeysa bishan hadda bartamaheeda ramadaanka barakaysan ku jirno inaan walaalaha Soomaaliyeed ku casuuno waan ognahay meelo badan oo dadku kala tukadaan iskuulka meel gadaa ka dambaysa oo barxad ah ayaa lagu tukan jiray nasiib wanaag marka space waxaan haysanaa indoors oo lacala haddii roob da'ayo ama dabayshu ay dhibaato ka jirto ay walaaluhu ku tukan karaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdirasaaq Diini. Waxaan taagannahay goobtan oo loogu magac daray imaamkeennii Allah u naxariistay imaam maxamed xasan. Goobtan waxay noqonaysaa goob kubadda lagu ciyaaro saad aragtaanba. Maanta halkan waxaa iskugu yimid muslimiintii oo dhan iyo dad aan muslim ahaynba. waxaa loo mahadcelinayay dadkii ka qayb qaatay taageeradii imaamkeennii imaam maxamed xasan ilaahay ha u raxmado kayskiisii socday muddada 2 sano iyo barka ahaa inuu soo gabagaboobay inay kuwii dilka geystay sheekheennii dilay maxaa la madaxkamadeeyey xabsiyo tiro badan ama maxaa la yiraahdaa xabsi xilli dheer ah lagu xukumay ayaanu maanta u joognaa meeshan waxaa ugu maqaalo ah imaamka intaanu dhiman inuu dhismaheeda bilaabay haddana waa gabagabo ciidda lagu tukan doona hadduu ilaahay yiraahdo meel ciidda lagu tukado waa meel kubadda lagu ciyaari doono marka halkaasaan maanta sababtaasaan halkaan u nimid muslimiintii timaaday way ku mahadsan yihiin dadkii kale oo muslimiinta ahayn ee degmadan deganna way ku mahadsan yihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum aad ayaa u mahadsantahay ka soo qaybgalka naga soo qayb gashay xafladan furitaanka baleyskan ugu dib magac darnay Sheekh Maxamed Aadam runtii waa center aan ugu talagalnay community-ga inay ku qabsadaan wixii dana oo ay leeyihiin iskuulkan markaanu bilaabeynay aimkaanu lahayn waxay ahayd in aan helno center ummadda u dhaxeeya oo ummadda dadka Soomaaliyeed ay wax ku qabsan karaan iyo iskuul ay leeyihiin welina maana gaarin goolihii aan lahayn waxaa nooga dhiman inaan aimkeenu wuxuu ahaa inaan gaarsiino iskuulkan inaan gaarsiino ilaa heer higher education oo ama college aan gaarsiino waanu ku soconaa insha Allah hadda waxaan noo dhamaatay phase-kii koowaad oo ahaa inaan helno center community ay ku duka karaan la isugu imaan karo xafladaha ku qabsan karaan iyo iskuul primary ah waan hadda haynaa waxaan rabnaa ku darnaa high school inaan gaarsiino inta aan retire noqon insha Allah waxaan rajaynaa inaan gaarsiino heer jaamacadeed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh caawa afurka waxaan joognaa imaam maxamed xasan aadam center oo gym ah oo loogu magac daray imaamkeennii Allah u naxariisto oo ahaa iskuulkii Focus Learning Academy family waxaan dhammaan anigoo ku hadlayo magaca relative-ka qaraabada imaamka aan halkaan ugu mahadcelinayaa dhammaan marti sharaftii iyo Soomaalidii iyo muslimiintii iyo dadkii kale aan muslimka ahaynba ee ka soo qayb galay furitaanka centerkan memorialka imaam maxamed xasan oo ah goob weyn oo gymka lagu ciyaaro waxay noqon doontaa insha Allah taala meel lagu dukado ciidaha waxay noqon doontaa jimcaha lagu dukado iyo meelo oo maaragtay gymka lagu ciyaaro intaba marka aad ugu mahadcelinayna Focus Learning Academy oo arintan fududeeyay insha Allah taala dhammaan waxaan leenahay Soomaalida muslimiinta ka qayb qaadatay imaamka maxkamadii iyo dhammaan waan ugu mahadcelinaynaa alxamdulillah waa lagu guuleystay waxaan kula dardaarmayaa Soomaalida midnimo ilaahay xarigiisa inay qabsadaan oo midoobaan ay iska dhaafaan gacmahooda jiray wax ku gooyaan tafaraaruq waxba ma taraayo midnimo heerkaas lagu gaaraa marka waxaan leeyahay Soomaaliya midooba u midooba wax walbo oo maartay iska kaashada waxaan noqon doontaan
dad himilooyinka ay rabaan gaar insha Allah aadam halkaan ugu mahad celinaya oo hay Soomaali TV iyo dhamaan dadkii ka soo qayb galay halkaan caawa xafladan lagu furaayay daafurka ahayd imaam maxamed xasan aadan caawa waxaan ka qayb galay anigoo ah Korneel Cabdiwaacid Maxamuud Xasan imaam maxamed Adam Samter oo laga furay halkaan furitaankii baan ka qayb galay afurkii ma sha Allah teamkii soo abaabulay iyo intii Soomaaliya oo isugu timid iyo intii ajnabi oo isugu timid intaba waa u mahad celinayna mahad Ilaahay bay u sugnaatay sheekana waxaan leenahay raadkiisii ma dhiman waa sii muuqda iskuulkana Allah barakeeyo ardayda Allah barakeeyo familka Allah barakeeyo waa u ducaynaynaa nin ku weyn buu ahaa dadka iyo bulshada iyo magaaladaba waxaanu leenahay afur wanaagsan baa loo sameeyay furitaankii xaruntiisa waanu soo dhaweynaynaa haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed ilaahay baa mahad iska leh waxaan rabaa inaan u mahad celiyo focus teamkeeda boardkeeda maamulkeeda Cabdirasaaq Faarax Soofe iyo dadka boardka ku jiro oo dhan iyo in alla intii soo qaban qaabisay xafladan afurka ah ee muhiimka ah ee walaalkan maxamed xasan sheekh maxamed xasan Allah u naxariistee asagana lagu maamuusay runtii waa arrin muhiim ah qofan jecelnahay oo maaragtay aad noogu qaali ah buu ahaa xusuustiisa wax fiican waaye in la xusuusto waa muhiim sidoo walaalka Cabdirasaaq u sheegay Soomaalida iyo ummadda Ohio dhan muhiim buu ahaa meel fiican buu uga jiray waana loogu kacay sidaas oo waxa weeyaan runtii way taabatay Soomaaliduna waa ka gurmadeen marka walaalkeen Allah u naxariisto meeshan loogu magac daray oo lagu maamuusay Ilaahay ha barakeeyo kuwii ka faa'iideysta oo khayr ku fuliyana Allah naga dhigo wax cid kastoo ka shaqeysay hawshaana khayr Allah ka siiyo ajri xasanaad sheekhan Allah u naxariisto waa mahadsantihiin hambaliyo focus team wax cajiib ah ay qabteen meeshan kolay kaamirada ka arki doontaan waa meel weyn oo noo soo saaciday oo community-gan aad uga faa'iidi doono waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacayga waxaa cali axmed cali aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka soo mid ahaado buildingka lagu magac daray adeerkay maxamed xasan aaram aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ajir axsanaad ilaahay ka siiyo asaga ayaa aaskiisa lahay ilaahay ajir axsanaad Allah ka siiyo buildingka waxaa lagu magac daray imaam maxamed aaram ajir axsanaad Allah idinka siiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iskuulada Horizon waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee Columbus ku yaal afar xarumood oo ku yaala wadada Morris Road oo kala dugsiga hoose mid ka dhexe iyo laba kuwa sare waxa ka go'an mid kasta bixinta waxbarasho tayo leh iyo soo saarista hogaamiyaasha mustaqbalka ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan talaabadooda ugu horeysa ee dunida waxbarashada aadistooda iskuulada sare oo halka ay ugu diyaar garoobaan mustaqbal leh fursado aan dhamaad lahayn hadafkeena halkan waa bixinta heerka ugu sareeya ee waxbarasho leh tartan iyo dhiirigelin barnaamijyadeena Robert School waa hal abuuro ka dheeraada fasalada deeqaha waxbarasho ee dalada concept waa kuwa lagu kobcinayo sarana loogu qaadaya ardayda waxay ardaydu qaadanayaan casharada dugsiga sare iyagoo dhigta dugsiga dhexe kuwa college-kana iyagoo jooga dugsiga sare waxaan helay dhibcaha college-ka ka hor inta aan aadin college-ka runtii waa fursad muhiim ah inaad hesho shahaadada college-ka adigoo dhiganaya dugsiga sare waa wadada ugu wanaagsan ee ardaydu ku horumarin karaan waxbarashadooda iyagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan casharada college-ka waxaan ogahay in haddii aad timaadaan iskuulada Horizon in caruurtiinu ay heli doonaan mustaqbal iftiimaya oo wanaagsan iyo waxbarasho tayo leh iskuulada Horizon waxay ka caawinayaan ardayda laylisadooda si bilaash ah iyagoo ka soo qaadaya guryahooda kuna celinaya haddii ay Columbus degan yihiin Horizon macahadka sayniska iyo waxbarashada ee Columbus